kulanti wacan wanaagsan daawade waa mar kale iyo barnaamijkeeni waraysiyada YouTuberada Soomaalida ugu caansan maantana waxaan ku waraysan doonaa mas'uulkii ama odaygii Shine Culay ahaa oo laga guuleystay xil uu ugu tartamayay YouTuberka Soomaalida ugu caansan bal aan waraysi ka qaadno odayga isla markaana aan weydiino bal sababaha keenay iyo waxa keenay in xilkaasi laga guuleysto aad baan ku soo dhaweynaa musharax bal nooga warbixi sababaha keenay in xilka laga guuleysto iyo bal xaaladda hadda sida ay tahay aad baan ugu xumay odaygii Shine Culay ahaa waa uu cadhaysan yahay waxaan u maleynayaa inaan waraysi ka qaadi karin maadaama uu sidan u cadhaysan yahay isla markaana uu sidan u ooyayo balse waxaan jeclaan lahayn inuu qof loo yara dalbado markaasi u hadla isaga ma waan hadli karaa waayahay aad baad u mahadsantahay kole sidan aragno cadho weyn baa kaa muuqata waxaanaad ka cadhaysan tahay ninkii xilkaasi kaga guuleystay maadaama aad saan u cadhaysan tahay haddii maanta lagu hor keeno ninkaasi qaabkeebaad u geli lahayd ma la heshiin lahayd mise markaasi diliin iyo waxaad ka dhaxayn lahaa cadho aad baan uga xumahay Shine in laga guuleysto aadna aad gool dareysato maadaama ninkii kula tartamayay aad ka xun tahay isla markaana aanad wax warbixin naga siin kareynin aynu ka gudubno kulay waxa jirtay markii aad ololaha ku jirtay inaad ololaha ku gashay inaad sameynayso xalfad ballaaran isla markaana u sameynayso taageerayaashaada xalfadii maxaa ku dhacay maxaa helay dib ayay u dhacay maxaa dhacay armada salaam waxa laga hadli karaa xafladii waa baaqatay lugooyo weyna aad baan ugu xumahay in xalfadaasina baaqato sidoo kale magaalo kale ayaad ku qabanaysay xalfada intii aad magaaladaasi ku noolayd xagee ayaad siixan jirtay xageese ayaad joogtay kulli magaalada cidi kuma joogto xagaad markaasi ku noolayd intaas hotel qaali ah baan online ka egtay oo 5 star ah kiibaan kireystay ma hotel ba ma waa kii musabix marka la dejiyo oran jiray ictiraafkii baa soo dhow sacuudigu wuxuu la dejiyay hoteelada madaxda malaha jarmalkuba hotel u samaysteen nin alla waxsiiyay iyo nin madaxa kaliya baa ilaahay afkiga geliyay waxa kale loo sheegay Shine in meeshaas udheelkaasi lagu furtay oo lacag badan laga qaaday arrinkaasi maxaa ka jira lacagtii ma lagu soo celiyo nimankii ma la hadasho ma tir lacagtii soo celiya aniguna saaka u tago waxaan warheed war qorshe way isbedelay gaalay waxay iga qadimatee war bal ii soo celiya xalay seexday bal 300 ii soo celiya markaas ay dhaheen ama dag ama guur aday ku taala lacagta waa ka tagtay marka lacagta hudheelka kaga baxday lacag intee leeg baheed ma waxa adigu markaa ugu soo tala gashay baheed mise lacagtii aad sidatay oo dhan baa laga furtay shilinkan waxaan ururinayo dhan saasa gacanta la iga mariyay marka aday nimanku lacagtii ka wada furteen miyaanay hool ka kareynin oo markaasi aanay de lacagtii wax u dhiganta ku siinin oo hool weyn oo aad xirfad ku dhigato ku siin markaas warinimada naqaano biir Soomaaliba wax kaba kareysanaba so marka wad ogaad adigu musharax qalqaaliyaad cidna wax ku falay cidna ku dooranaynin marka iminka saad u aragtaa arrinkan adigu maxaad iminka ka gungaadhay xala waxaan maqli jiray shimbiri maalin bay duqaaday maalintii bulkooyada bay gubtay maxaa ay soo waday marka ilaa meesha shimbiri lama doorin rag baad la tartamayso YouTuber baad ku tartamaysay marka adigu maxaad ku tala gashay isla dadka ka la hortagtid oo markaas aad rag kula tartamaysay hadana meesha wuxuu ku haynba waxa shimbirayahan meesha keenta sidii xafladii kala tagi jirtay mikrofoonka inta la buudo dadka waxa ay alla ku baraa YouTube ka soo sideen jirtay sida ugu shub baan lahaa waa kulimka walaga guuleystay ninka loo dirisay Cabdillah ka guuleystay oo markaasi ka views iyo subscribe badnaaday taageerayaashiisuna ka bateen marka ninkii jawigiisa iyo isaga taageerayaashiisa sidee bay ku sugnaan markii kugu xaal dambeysay ee aad goobta ka imaneysay adigu war dawladdu baa yaabtay xataa cabaarkii yaraa oo dariiqada taagnaa ya ba maxaan ku iraahdaayay sida loogu boobay sawir dhac cadaankii baa yaabay warninku muxuu yahay waa ma Jackson oo Soomaaliyeed baa dhac saasa loogu boobay anigii halhaleel intaas ayaan ku saafmeelna daawadayaal waraysigeeni koobnaa aan la yeelanay Shine Culay barnaamijku waxaan ugu talagalnay YouTuberada Soomaalida ugu caansan inaan ku waraysano intaanu barnaamij lamid ah ku kulmi doono waa anigu maxaad sigar fadlan subscribe saar channelkan waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh